الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال الله سبحانه وتعالى أيان حسينا وينينينا إسحسوسينينا وحونا قربو جل جلاله جل شانه. ولا ليال حلقة وحلقة السقالية الطبانات oo ka mid ah xalaqooyinkii noo soo socday oo ka hadlayay dacwadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo quraysh sida uu diinta u faafinayay iyo sida ay quraysh iskugu dayeysay in ay joojiso naf iyo maal iyo wax walbay u huraysay asna wax walba ayuu u huraayay nebiga calayhi salaatu wasalaam in uu gaarsiiyo waajibkan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu saaray oo nuurkaana uu fido. laakiin mar walba arrintan ilaaha damaanad qaaday inay fidayso cidda ka hor imaanaysa ayaa fashilmaysa fashil hubaal ah oon shaki ku jirin. maanta annaga ayayna soo gaartay caalamkana meel kasta oo ay caalamka waddan walba iyo magaalo walba iyo gobol walbana ilaahay ayaa lagu caabudaa soo u faafay islaamka. marka xalaqooyinkaas ayaan soo wadnay tii 16aad iyo 17aad iyo 18aad waxaan uga soo hadalnay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ay ku xakumeen dil iyo asigoo ka baxsaday ka haajiray oo godkii ilaa uu ka galay xalaqadii 17aad ahayd 18aadna waxay ahayd godkii asoo ka baxay oo madiina aaday ilaa madiina uu ka tagayay. waxbaan dul marmarnay xalaqadan waxaan dul istaagaynaa haddii alla yiraahdo wixii laga fahmay iyo waxa cibro ahaan looga qaadanayo cashirada ku jira mucjisaadkii ku jirtay ummadihii hore ma hijroo jireen mise nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ku koobneed. arrimo noocaasaan dul marmaraynaa iyo wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala fududeeyo haddii alla yidhaahdo. marka aan isla dhegaysanno sheergareeya ummadda kalena gaarsiiya. diintu waxay ku faafdaa dacwaduna waa in dadka loogu yeero adiga ku dhaqan dadkana ugu yeer ilaahay subxaanahu wa tacaala in la caabudo keligii. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yuriiduuna waxay doonayaan an yudfi'uu nuura allaahi biafwaahihim nuurka ilaahay inay afkooda ku damiyaan waya'ba allaahu ilaahayna waa diiday ilaa an yutima nuurahu ilaa inuu nuurkiisa ka dhammaystira maahane walow kariha alkaafiruun gaaladuba ha dhibsadaane. cid kastoo ilaahay ku gaalowda oo arrintaas dhibsanaysa oo ka hor imaanaysa qasban canwa ayagoo ku qasban ayay fulaysaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda ku xigta wuxuu leeyahay huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa ilaahay waa ilaahayga rasuulkiisa u soo diray oo hanuun la soo diray wa diini alxaqi diintii xaq aheed la soo diray liyudhirahu cala diini kullih si ay diintaani diimanka kaloo dhan uga kor marto oo ay uga muuqato si uu u gaarsiiyo xaqaani u faafo walow kariha almushrikuun mushrikiintuba ha dhibsadaane. arrintaas damaanad qaad ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka ahaato waaye waana waxa laysku haystay dagaalku meesha uu ka socdo iyo waxa laysku haysto la kala mari la'yaha waay ismari waaga meesha uu ka jiro waay. aayaddan kale ilaahay aayadaha soo socda hijrada ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uga hadlaa. hijradan siduu ilaahay uga hadlay ayaan ku dul maraynaa biidni illaahi alkariim. ilaahay wuxuu leeyahay ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah haddaadna u gargaaraynin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay ayaa u gargaaray id akhrajahu aladiina kafaruu markii kuwii gaaloobay ay ka soo bixiyeen waddankiisii dhulkiisii deegaankiisii thaaniya ithnayni id humaa fi lgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxsan wuxuu u gargaaray markay labada ahaayeen oo ay godka ku jireen oo mucjisada ay ku noqotay qoladii quraysh oo ay waxba ka qaadi waayeen. markuu godka ku jiro laftigiisa way dul istaageen ma arki karaan albaabkeedii caaro ilaahay ciidan difaaca uga dhigay caaro laa taxsan ina allaaha macanaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam asoo godka ku jira wuxuu ku yidhi abubakar sidiiq ha murugoonin ilaahay ayaa nala jiray. markuu xaalku meeshaas maraayay fa anzala allaahu sakiinatahu calayhi ilaahay ayaa ku soo dejiyey xasiloonidiisa qalbigiisa dejiyo sugay xasilooni ku soo dejiyey
وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى إذن أن لأركين إلهي وكحوجيي وأقو قرقاري كلمة إلهينا كلمة قالنا وحو إلهي كدق من هوسيسا كلمة وكلمة الله هي العليا كلمة إلهينا ومد مروى البصرين إيسا وإلهي سبحانه وتعالى سريسينا والله عزيز حكيم أرنتاسو مركا waxay ahayd gargaar Ilaahay subhanahu wa ta'ala u gargaaray laakiin hijradu waxay ahayd kamid ahayd mucjisooyinkii dhacay oo wax bini aadamka ay ku fahmayeen gaar ahaan gaaladii Quraysh wax badan ayay fahmi waayeen markay hijradanu dhacayso mucjiso waay maxay mucjiso ku tahay practically waxay u arkayeen awoodooda dhan markay isku keeneen inay dilaan oo gurigiisa hareeriyaan ayuu dhaxmaray Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhax badbaadiyay saddan min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun ilaaha aragooda tiray waa mucjiso tan kalena markii ay raadiyeen oo ay maal ku bixiyeen oo dadkii ay daba dhigeen godkii oo ku jiray way arki waayeen tan kale waxay ahayd suraaqa ninkii la dhihi jiray markuu ka daba cararay oo indhiisa ku soo arkay saxaabi oo noqday gadaal oo ka islaamay laakiin ilaa maka la furto ma islaamin mucjisooyin ay u jeedaan ahayd awoodoodii dhan intuu ka baxsado madiinadii ay ka celinayeen oo tagay inay wax ku fahmaan oo ay ku islaamaan ayay ahayd waxay la mid ahayd abeesadii oo nabi Muuse calayhi salaatu wasalaam oo watay oo dhulka la dhigo fircoon inuu ku cibro qaato la rabay oo kale ahayd laakiin maysan ku cibro qaadan way u jeedaan waxaan in awoodda Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri alladheena ukhrijuu min diyaarihim bighayri haqqin kuwa laga baxshay guryahooda xaq la'aan maxaa lagu haystaa marka ilaa an yaqulu rabbuna allah inay dhahaan rabbigeena ayaa ilaahay ah wax kale aan ahayn laguma haysanin oo guryahooda loogama bixinin awoodda Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa badbaadisa marka man yansuruhu inna allaha laqawiyyun aziz cidda Ilaahay u gargaaro ciddaas awood haysata laana awoodii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa garab taagan marka waxaa su'aal ka imaanaysa Israa wal Mi'raaj nabiga calayhi salaatu wasalaam Ilaahay ayaa dheelmiyay isla habeenkii ayuu Maka laga dheelmiyay Baytul Maqdis la geeyay Qudus la geeyay kadibna todobada samo maxaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo u dheelmi waayay nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam oo dhibkaan oo dhan oo u maray taasi waxay ahayd mucjisada aan ka soo hadalno Quraysh ay u ahayd iyo muslimiinta oo ay ka faa'iideysanay casharo inay ka faa'iideystaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay عشرة اسمها هورية تضحية نفورد إن لسمايو مال هورد إن لسمايو وحان هورتي إلهي أياكو أبا الجداية وحكا بدن نبي عليه الصلاة والسلام هو سميي أبو بكر الصديق وحوتو سالو ياهي سيدا مؤمنين تا لو قرب إن النبي عليه الصلاة والسلام رائتان كيسا دفاعيسا والدلاس إن يكون دلالان دحال كيسي إنان قادنو أنك أبو بكر الصديق محو كاني عرورتيسي يا مالكيسي يا نفتيسي أيو كاني مركاسو صفكه هورجليي مركاسو وحو البقى كلمال إسكا صوت دقي تضحية ناس وعشر وحاكلو 10 إنيسان مؤمنين تو كوكت سومن أم بقلد أيسان أفهمين إني مسلم يهين أو إلهي رميسين يهين توكل كإنيسان أفهمين تواكل وأي توكل لا إيمانان إلهي أيقو الرميسان هدنا أسبابتي لا إيماناي نبي عليه الصلاة والسلام أي أنت صدب مراي لكن مركو حالكو حمادو وأودي سأرنتو كبحضو فرجا فرماي قد كي كور استاغن وحو ما قبل كريم سراقة وحال انحوها فرس كيسي دولكا غلاي مركو دحسي مراي cunto la'aan ay ahayd ri oo waxba naaseeda aana lahayn ayuu aana ka maalanayay aliga waxa tabartaadu tahay gali in ilaahay subhanahu wa ta'ala raali galisid
laakiin awoodda aad helaysid waxay tahay waxaa ku bixisay wax ka weyn ayaad helaysaa difaacaagu taasoo noqonaa mucjisooyinka iyo iimaanka in la adkaysto mucjisadana la rumeeyo waxaa kaloo ka faa'iidnay cibrada lagu qaadanayo dadka ka hor imaanaya iyo meesha ay ku dambaynayaan ilaahay subxaanahu wa tacaalana wuu ka hadlay ummadihii hore meesha ay ku dambeeyeen oo diiday ummadahaas waxaa ka mid ah nebi nuux calayhi salaatu wasalaam dadkii ka hor imaaday xaggee ku dambeeyeen asigay intii rumaysay doonaa lagu badbaadiyey intii kale waa la halaagay nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam qoomkiisii oo dhanaa ka hor imaadeen dabay ku rideen ilaahaa dabkii ka badbaadiyey subxaanahu wa tacaala nebi muuse calayhi salaatu wasalaam fircoon oo awood isbiday ayaa wuxuu go'aansaday inuu soo afjaro laakiin ayagu baddii way ka tallaabeen asigana baddii ayuu ku halaagsamay asiga iyo weliba ciidankiisii oo dhan marka mar walba awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa meesha ku jirta markii ay gudbeen oo ay tageen madiina almunawara ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka hadlaa dadka ay u tageen waaladiina tabawa'u addaara waaliimaana min qablihim yuxibbuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasah waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum almuflixuun aayaddan ilaah wuxuu uga hadlaa nimankii ansaar ahaa oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam soo dhoweeyey iimaan ayuu ku sheegay qalbigooda xaasidnimo inuusan u haynin ku sheegay inay jecel yihiin dadka u soo hijroonaya ayuu ku sheegay waa dad ilaahay subxaanahu wa tacaala u marqaati furay jalla jalaaluhu jalla sha'nuh annagana ilaahay subxaanahu wa tacaala waana sheegay waaladiina jaa'uu min bacdihim kuwa ayaga kadib imaanaya oo nebiga calayhi salaatu wasalaam aan arkin oo rumaynaya oo raacaya oo xaqa sidii u faafinaya jaa'uu min bacdihim yaquuluuna waxay leeyihiin ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ما هو أيغنا كو أماني كوينان هدى الجوغة يددك اللمدك إن إلهي سبحانه وتعالى بريايان أو ولا له ذي هراء يود عينايان أو إيمانك لها أيغنا أيسا قلبي قودو قل أو سنكجرين حاسن نمو أو سنكجرين marka waxa la rabo waxay tahay dacwadaas in la faafiyo oo lagu dadaalo si tartiib oo degan oo xigmad iyo farsamo ay ku jirto oo maslaxadda laga talinayo laakiin ay aan gebgeb ku salaysnayn oo aan isnac ku salaysnayn oo isdil ku salaysnayn oo balaayo falkin ku salaysnayn laakiin u baahan in loo sabro u baahan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جزاكم الله خيرا سي فافية